بسم الله الرحمن الرحيم ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بلشدة أورجانيك شوب مركلة يكلن وعن ما شاء الله سامنا قبرتين عده وحنجعلنا مركز تبع إن وحي عن سلنا هاي معلومات كدم من دتك ولا لي هنا مارتين كتحن إن إذن لو ذاقنو سي idinka caafimaadkiina iyo dhalaankiina iyo dadka idinku heeran iyo waalidkiina iyo aad iyagana ugu kaalmaydaan inay nolol fiican runtii ay ku noolaadaan waxyaabaha laga cabaado badanana waxa u badan oo dadka aad kaga sheegtaan nafaqada rudo ay wadato qofkii xanuun joogta iska hayo haduu dhaqtar tagan leeyahay negative tahay qofkii oo maaragtay runtii leeyahay waxa ka dhiman vitamin D waxa ka dhiman calcium waxa kugu yar vitamin B complex hadana dhahay vitaminadan ma cuni kara iga dhaafa ama urkoodii ama magaciisagoodii laakiin qofkii inuu isdaryeelo ay tahay runtii oo maqlo dhaqtarku warka uu leeyahay ama oo maqlaba jirkiisa oo la sheekaysto jirkiisa maaragtay oo noloshiisa inuu bedelo dhowr jeer horena waxa daraadan qabanay waxa ku jiray maaragtay isbedelka cusub yaani qofku inuu hab nololeedkiisii isbedel ku sameeyo ama ha yaraado ama ha weynaado ama ha caafimaad qabo ama ha jiranaado waa muhiim inuu la jaan qaadi karo jawaabaha jirkiisa iyo su'aalaha oo qabo jirkiisa inuu jawaabo sax ah oo ka siiyo maanta waxaan jecelnahay inaan idin la wadaagno borotiiyada aan hayno borotiiyada runtii ugu qiimaha badan kuwada ugu sareeya kamida maaragtay waa muntaj kamida kuwa aan u naqaan ama product kamid spirulina ayaa magaciisa la yiraahdaa taxaalib zarqa ayaa aad maaragtay tiraahdaa waana wadanka hadda badana aad looga isticmaalay bariyo hore intaana hadda aysan Malaysia aysan soo saartaa ka badan ku subin Masar ayaa kamid ah oo dadka beerka ka jiranaya subax walba waxa loo qori jiray soo doona 2 xabo 3 xabo oo la kuskusay soo doona jiray maaragtay laakiin se runtii ka koreeya intaas spirulina runtii spirulina waa geed subxaanahu wa ta'ala oo yeelay fawaa'id aad u fara badan oo ilaahay yeelay waa hal geed laakiin aad iyo aad loo soo koobi kara ma vitamin B complex oo dhanaa ku jira macnaha vitamin D giya kamida vitamin K omega 6 omega 9 yani waxyaabaha vitaminaadka ama mineralska ee jirku u baahan yahay ayaa kamida maaragtay shardi laakiin waxa weeye inagu waxaan xoog saareynaa in aan wixii nadiifa oo si alla u unkay ah inaan ku soo silno si aad idinkuna u aragtaan fawaa'idooda laakiin se noocyo badan ay jirto spirulinaha qof walba waa suubinaya qaara kiimikaliisa qaara magaciisa laakiin geedkiyo sax iyaga naftirkooda intaas oo nooc u kala baxa dhowrka nooc ugu fiican oo la hagaajiyo weeye kambanigana yani runtii soo saara yani isaga ayaa alaabtan beera isaga ayaa daboolada ku shuba isaga ayaa baakin gareeya isaga ayaana nagu soo sima saasa anagu idinkiin ku simayna macna yani waa kambanigi toos idinkii kambanigi qof idin dhaxeeya male kambanigu ba alaabta ku soo simay marka alaab ma aha la leeyahay shirkad hebel aan noo sheegtay inay fiican tahay ma aha laakiin waxa uu ku leeyahay kambanigu ana 10 sano baaraye ana arkay fawaa'ida ay leedahay iyo qiimaha ay leedahay aniga ayaa garanaya anana kugu soo simay waa saas weey macluumaadda laga hadlay marka waxay aad u nafaqaysaa dumarka carruurta yar yarka kuwa xaamilada dadka waayeelka waxay aad u hagaajisaa difaaca jirka waxay aad u hagaajisaa dhismaha lafaha cidiyaha timaha waxay aad u la dagaashaa walwalka buufiska qofkii waxay siinaysaa inuu gagsi yeesho qofku ma aha kaliya in walaalayaal loo gagsado viruska iyo infection kaliya jirku inuu gagsanayo ma jirku wuxuu gagsi ka leeyahay sida shirkaduhu markay baabuurta suubinayaan baabuurku jugta ka dhacdo oo gagsi ogyahay saas oo kale ayaa quudkan iyo nafaqooyinkan aan cuneen waxyaabaha naxdintii oo kale ama jugku ku dhacdo oo kale jirkaagu inuu gagsi leeyahay macnaheedu waa in unugyadaadu u diyaarsan yihiin meeshii wax ka yimaadaanba gurma degdeg in la gaari karaan oo marka ay difaacan karaan jirka ilaali karaan jugtii iska maareyn karaan iska yareyn karaan walwalkii qofka uu walwalay awood oo u yeesho inuu shaygaana ka fakaro hawlihiisii kalena wato waa taas weeye madal isku dhaafay marka runtii aad iyo aad uu dumarka xaqiisa ugu fiican yahay sababtoo ah khaasatan markay gaaraan da'da ay maalan maartay ay caadada ama magaciisiga ay joogsato kale wixii ka dambeeya wax alla wixii jirku heli jiray booskoodii kan bay ka helayaan macna hadii burbur kuma dhacayo la burbur kuma dhacayo walwal farbadan kuma dhacayo isla hadal iyo stress kuma dhacayo isbuufisi ma ku furmaayo qof miisaaman oo nafaqaysan bay noqonayaan qofku sababtoo ah de waxa weey hadii hooyo tahay ilmo nuujaysan ilmihi in caana badan helaan ayadina ay hesho faa'iidadeedii ay iimaanayda hadii ay jirto hadii alla ku roon yahay in
ay xaamilataana nafaqadeediina inay hesho ilmuhuna nafaqadoodii ay helaan bay awood aad u siinaysaa oo daawooyinkii kiimikada faraha badan loo qorayay kaga maarmaysaa xoog iyo nashaadna waa siinaysaa xagga neerfayaasha quudintooda yani wax lasoo koobi kara maaha yani maanta dhan waan ka hadlayna haddaan dhahno spirulina waa wax lasoo koobi kara maaha laakiin idinku google-ka eega akhriya annaga waxaa noogu timaadaan iyadiyo naturala oo aan lahayn wax side effect si looga faa'iidaysta marka qaar waa candy kan oo kale hadda 500 ku jirta kan oo kale 300 xaba ayaa ku jirta oo saas isagana u samaysan qaarna waa budo soo budaan jira oo runtii maanta maaragtay halkan ku jiro kale waa budo kan oo kale hadda sida uu yahay spirulina budo weeye isagoo budaa weeye oo markaas awood waxa uu leedahay ilmihi yara mushaarida inaa ugu qasto biyo inaa ugu qasto malab ugu darto siiso haddii dad waaweyn ay yihiinna inta furtaan furka ku shubanayaan markaasay laqayaan 3 xabo qofku ku bilaaba inuu laqo haddii uu kankaandiga yahay 3daas xabo hadduu u baahdo wuu siyaadi karaa maalintii ilaa 9 uu ka gaari karaa macnaha markaas saas leenahay maaha wixii inay kiniini yihiin oo kiniini la laqayo waa wareey kiniini ma 9 laga laqan leeyahay maaha laakiin waxa uu quwax oo kale weey waa geedkii la aruurshay marka adoo aan salaato iyo khudaar iyo adoo cunayo kale weey ma taas ay noqonaysaa marka maadaama uu fiican yahay waxa hadana lagu daray qamadiga lagu daray waa isagiyo oo waxa weeye mushaariye macnaha ilmihi oo kale subax quraacda markay iskoolka aadayaan ama ay ordayaan ama dadka waaweyn naftirkooda daahid ay ku jirto mushaaridiya la shuba spirulina ku jira waa qamadigi oo natural yani bishiisi koowaad ama 2 isbuuc 3 isbuuc hore ah iyo iyadii la isku qasay mushaari ahaan weeye waa loo qasaya dadka waaweyn oo waayeelka cunto qaadashada dhib ku tahay runtii aad ugu fiican yahay ciyaartooyda aad ugu fiican yahay dadka degdeg badan oo subax guriga ka degdegayo ilmihii is arkaynin iyo maartay aad ugu fiican yahay malabay ku darsanayaan haddii aysan sokor iyo dhibaato aysan qabin waa heersa ama sidiisa lagu qasan karaa caano kulul biyo kulul intaas lagu habaysan karaa marka spirulina runtii aad u fawaaid badan yahay dadka qaarkoodna waxay u isticmaalaan sida dumarka oo kale habab kale fara badan bay u isticmaalaan iyagoo cunada kaliya maana xataa oogada banaanka oo ka anfacayo marka runtii spirulina waxa weeye waa ghida mutakaamil waa ghida dhan weeye oo runtii maaragtay caruurteena iyo dumarkeena aad iyo aad u anfacaysa iyo waalidka maaragtay runtii xoogo qofku waayeelnimada oo gol waalidka noqdo vitaminski kulli wuxuu u baahnaa ma nuugi karo cuntada kama nuugi karo iyadoo diyaar u qaadanaya marka waxaa ka nasanaysaa eed sheegasho badan iyo xanuun badan iyo wareer badan iyo waa laga nasanaya marka saas awgeed productgaas qiimaha leh ayaa maanta kala hadalnay isagoo markaa si kale u eg cerealki oo si kale u egna waa kan isagana 30 xabaa ku jirta waa isla asagii laakiin saasna uu egyahay marka labadaas nooc ayaa marka ku haynaa waana runtii quraac fiican weeye ama canjeerada burka la qasayo ilmaha canjeerada loogu daraa si ay bahasha gaaska iyo magciisiga ay kaga yareeyo maskaxdooda u noqoto maskax runtii fresh oo maaragtay qaadan karta haday quraac xibtiseed haday iskoolaad haday magciisiga kusoo dhawaada productgeena qiimaha leh ee runtii leh cabitaan runtii leh cunto runtii leh banaanka marka organic shop waa su'aalihiina iyo maaragtay runtii inaan aad uga faa'iideyno waa jecelnahay marka kusoo dhawaada productgaas qiimaha leh maanta wassalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatuh